waayahay dhawaan waxa yimid madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo magaalada Kismaayo maxaa ugu muhiimsanaa oo aad ka wada hadasheen waxa ugu muhiimsanaa ka wada hadlayna guud ahaan waxa arrimaha Soomaalida maanta hor yaalla koow ay ka tahay amniga markaan amniga ku leeyahay waxa koow ka ahaa la dagaalanka kooxdan nabadiidka xoreynta deegaanada maqan xasiloonida iyo wadanka in loo helo qodobka koowaad wuxuu arrimaha ammaanka ka wada hadal marmarka qaarkood dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada khilaafka wada shaqeynta xaggeeda ayaa dhexmara tusaale ahaan haddii dowladda go'aan ka soo baxo oo macnaha go'aankiina uu cuntami waayo dowlad goboleedku ma ixtiraamayso go'aanka dowladda marka arintaasi see lagu xalin karaa kula tahay federalismka dawladdu cusub yahay nooca waa ka China mise waa ka Japan mise waa ka Germany mise waa Switzerland mise waa Mareykan Ethiopia keeda yani waa u baahan in marka hore wax la isku ogaado isku ogaanaha shaqaalaad waxay keenaysaa in waxyaalaha qaarkood la isweydiiyo baarlamaanka hadda ka dhisan halkan dowlad goboleedka Jubbaland cabasho ayaa ka imaanaysa dad badan baa intay ka xanaaqaan bay ka tageen marka maxaad u maleynaysaa maxay u cabanayaan dadkaas laakiin waxaan aqbali karayna waxaan inta ku soo daarayna anagu waqtigeeda dhalo labinay wiil ama dibadda ka yimid oo le anagu baasaboor baa wata ilmaha dibadda ku noolay insurance wax caafimaadkooda ku jira kan sida aan rabo saasa hebel hadaan anigu mas'uuliyadda qabanayno oo mas'uuliyadda aan qabanayno anagu maxay iga baabacaya maxay iga halaabaya anagu way aragnimadaada intii aad ahayd madaxweynaha waxaan u maleynayaa dawlado kala duwan ayaad soo martay maxaa u maleynaysaa farqiga kugu dhaxeeya dawladii hore Xasan Sheekh iyo tan Farmaajo aad isleedahay kala duwanaansho yar ayaa u dhaxeeya waxaan kala shakhsigu leadership hogaamin buu yeelan karaa laakiin waxa asalkii waxa weeyaan waayahay dawlad walba markay dhisanto waa la wacaa dibadaha shirar loogu qabtaa hadda ka hor adoo Belgium jooga waan kula hadlay xogaa waxyaabo aan jeclaysanaynin oo qaabka loo yimidna way jireen kii hadda London waad ka qayb gashay marka waxyaabaha la ballan qaadayo maxaad u maleynaysaa in loo saxiixayo haddii aanay gacanta shacabka soo galaynin miyaysan ahayn in hogaamiyaasha oo madaxweynuhu u horeeyo inayba yiraahdaan ba waxaan gacanteena ma soo galayaan dhaqaalahani hana la ka joojiyo waxaan leeyahay annaga isdiinay halkaas inaan xisaabtan weyno in kolba meel loogu yeero in la yiraahdo kala laakiin waxaan leeyahay hadda is aaminka laftirka dowladaha laftirka wax bixin